barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa xidigaha Hollywood-ka bilada qaatay Padma Shee oo ah bilada afraad ee ugu darajada sareyso taasi oo la guddoonsiiyay muwaadiniinta Hindiga ah. Haddaba waxaan dib u milicsan doonaa taariikh ahaan xidigaha Hollywood-ka ka tirsan ee dawladda India bilada Padma Shee Award la guddoonsiiyay. Haddaba Padma Shee Award waxay dawladda India siisaa shakhsiyaadka saameynta kala duwan la imaada laguna amaano waxqabadkooda heerka sare ah xirfadaha kala duwan sida caadiga ah. Sanad walba ayaa la bixiyaa Padma Shee Award waxaa la siiyaa shakhsiyaadka heerka wacan ka gaara waxqabad ahaan qaybaha kala duwan sida fanka, waxbarashada, warshadaha, sayniska, ciyaaraha, daawada, arrimaha bulshada, arrimaha siyaasadda iyo wixii la halmaalo. Balse si gaar ah shakhsiyaadka Hollywood-ka ka tirsan ee abaalmarintan Padma Shee Award la siiyo ee dawladda India guddoonsiisay waxaa ka mid ah Lambar 1 Shah Rukh Khan ayaa la siiyay 2005tii, Aamir Khan ayaa la siiyay 2003tii, Aishwarya Rai ayaa la siiyay 2009kii, Amitabh Bachchan ayaa la siiyay 1984tii, Arvind Khan ayaa la siiyay 2001tii, Akshay Kumar ayaa la siiyay isna 2009kii, Kajol ayaa la siiyay 2011, Saif Ali Khan ayaa la siiyay 2010kii, Vidya Balan ayaa la siiyay 2014kii, Tabu la siiyay 2011kii, Madhuri Dixit la siiyay 2008, Sanjay Leela Bhansali ayaa isna la siiyay 2015kii, Paresh Rawal ayaa la siiyay 2014kii, Anuba Kher ayaa la siiyay 2004tii, Hema Malini ayaa la siiyay 2002, Helen ayaa la siiyay 2009kii, Sheridev ayaa iyadana la siiyay 2013kii, Kamal Hassan ayaa isna sidoo kale la siiyay 2014kii, Sharmila Tagore ayaa la siiyay 2013kii, Shekhal Kapoor ayaa isna la siiyay 2000, Raqi ayaa iyadana la siiyay 2003, Udul Narayan ayaa isna la siiyay 2009kii, Kumar Sanu ayaa la siiyay 2003, Ajay Devgan ayaa la siiyay 2016, Priyanka Chopra atrishadan ayaa iyadana la siiyay 2016kii, Zanaduri Shah ayaa iyadana la siiyay 1987 oo Maburi 1990kii ayaa la siiyay, Shabana Azmi 1988 ayaa la siiyay. Raali ahaada waxaan hilmaanay inaan xusno in Salim Khan oo ah aabaha dhalay Salman Khan uu iska diiday inuu dawladda India ka gudoomo bilada Padma Shee Award sanadkii hore, wuxuuna sheegay in 80 jirkan ay dawladda India la soo daahday xilligii ay aqoonsan lahayd dadaalkii uu fanka ka soo qabtay. Salim Khan waa shakhsigii qoray filmadii 70kii qatarta noqday sida Sholin Dewa iyo Sanjeer, wuxuuna ka dhawaajiyay in xukuumadda India uusan biladan ka aqbali karin maadaama 55 sano uu fanka ku soo jiray shaqo aan lagu aqoonsanin uusan maanta qaadan karin biladeeda. waayo Salim Khan ayaa xusay saaxiibkiis oo ay filimada isla qori jiray actor dawladda India siisay bilada Padma Shee Award sanadii 1999kii. sidaas daraadeed wuxuu Salim Khan sheegay in dawladda India ay la soo daahday xilligii uu gudoomi lahaa bilada Padma Shee. FG shakhsiyaadka aan idinla wadaagnay magacyadooda waa kuwa ugu caansan ee Hollywood-ka ka tirsan lana siiyay bilada Padma Shee. wayna jiri karaan xidigo kale oo Bollywood-ka ka tirsan kuwaas oo biladan ku guuleystay. qofkii arko wuu nala wadaagi karaa si aan liiskan ugu darno. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay xidigaha liiska xidigaha ku guuleystay abaalmarinta afraad ee ugu qatarsan ee dawladda India ay bixiso ee Padma Shee. barnaamij mid caynkan oo kale intaan ku kulmeyno waa bahda Saxafi Film oo idin leh kulan dambe oo xiiso leh. hana mogaanin inaad subscribe dhahdaan Saxafi channel si raaci like and share waadna ku mahadsantahay daawadashadeena.